YouTube ka lacag ka sameey adiga oo aan muuqaal duubin soo dhawaada magacay waa Maxamed Charles channelka aad naga daawanaysan waa Charles waxaan ka soo guurnay oo aan rebranding ku sameynay channelkeeni oo ahaa Postpix magacayga ka bedelnay sida ula socda dadka hore inoo la socday dadka hadda nagu cusub baa soo dhawaada channelkan subscribe saaro si aad muuqaaladan oo kale aad ula socotid waxaan uga hadalnaa halkan online businesska iyo waxyaabaha hababka kala duwan online ka lacagta looga sameeyo dhawaada mar kale maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay serious ama taxane aan bilownay oo ku saabsan YouTube-ka taxanayaal badan baan meeshan ugu talagalnay inaan uga sheekayno marka playlistigan wuxuu noqon doonaa mid u gaar ah YouTube-ka dadka waxaan ugu talagalaynaa marka meesha dadka Soomaalidu waxay jecel yihiin waliba hab fudud inay lacag online uga sameeyaan marka waxaan ka soo bilaabaynaa hababka ugu fudud oo YouTube-ka qofka uu wax uga sameyn karo ilaa heer qofku uusan xitaa content haysan ama wax uu YouTube-ka soo galiyo marka qaybo kala yeelan doonta serious kan hadda qaybo kala yeelan doona kan waa part 1 weeye yani muuqaaladan la magac baxay sidee yani YouTube-ka lacag looga sameeyaa adigoo aan muuqaal duubin kan koowaad marka wuxuu ku saabsan yahay midka habka ugu fudud ama mataqaana la yiraahdo ugu qaabka ugu leeysan oo loo sameyn karo waxa ka soo qaad marka waxa sameysanaysaa channel baa soo sameysanaysaa channelka marka soo sameysatid marka qofka aan aqoon si channel loo sameeyo muuqaalkan ka sameyn doonaa laakiin hadda waxa ka soo qaadanayna channelkii uu sameysan yahay marka waxaad u baahan tahay qaabkii contentiga soo gali lahayd iyo sida u heli lahayd adoo waliba aan muuqaal duubayn oo muuqaal adigu aan sameeyno xitaa script aan haysan waxba haysan laba hadda marka sameyn ka dhaaw oo qaabka fiican anigu aan kugula talinayo waxa weeye horta in muuqaalo waxa jira marka English oo aad isticmaali kartid muuqaalada marka waxay ku fiican yihiin CPM kooda sareeya oo YouTube-ka maadaama dadka waxa weeye wax ku xayisiyo muuqaalada markay English yihiin buu CPM kooda ka sareeya kuwa Soomaaliga marka muuqaalo copyright aan lahayn oo waxa jira saddex hab oo aan inta tusi doono marka kan muuqaalkan qaybta koowaad maadaama uu yahay hal waxaan ku si doonaa qaabka ugu fudud waxa ka soo qaada marka halkan waxaan ku qoraynaa YouTube kan tagnay mowduuc baa ku qoraysaa tusaalahan oo kale adigu waxa ku qortaa motivational speech oo kale motivational speech marka YouTube ka soo qoro adiga waxa doonta marka niche baad kala dooran doontaa hadhow muuqaalada dambe aan ku tusi doonaa sida qaabka ugu fiican oo niche-ka ugu fiican ama mowduucyada ugu fiican oo aad dooran kartid qaabka aad ku sameyn kartid laakiin hadda tusaale waxa soo qaadataa motivational speech baan YouTube ka hadda ku qoray kadib waxa sameynaya meeshan filters ay ku qoran tahay baa tagaysaa filter marka taabatid waa soo raacaysaa halkan waxa imaanaysaa marka ay ku qoran tahay features hoosteeda imaanaysaa waxa taabanaysaa marka creative commons ka riixaysaa marka wuxuu ku filter gareynayaa creative commons ka muuqaalada marka creative commons ka waxa weeye waxa loo ogol yahay in YouTube-ka adiguna aad isticmaali kartid oo dib u soo gashan kartid si ay u sii hubisid marka muuqaalka mid kanoo kale hadda ku dhufanaya muuqaalkii aan ku dhufanaya description-kiisa marka fiirinayda baad ka hubinaysaa inuu si yahay oo dib loo isticmaali karo ama creative commons yahay okay muuqaalkii aan dib joognaa muuqaalka marka saad dul tagtid marka waxa sameynaysaa description-kiisa tagaysaa hoos u soo soco xagan marka ay license ku qoran tahay wayna ku qornaataa creative commons attribution license reuse allowed tabtaa waa inay u qoran tahay markay tabtaa u qoran tahay marka muuqaalkan waa la degi kartaa waana isticmaali kartaa YouTube-kana dib u soo gelin kartaa inkastoo ay fiican tahay inaad daawatid oo wixii haday looga ku jirto kale aad mataqaana ka reebtid oo aad editing dib u soo marisid laakiin waa isticmaali kartaa tabtiisa aad ku soo gelin kartaa okay si marka aan ula degno muuqaalkan waxa sameynaysaa share baad leedahay kadibna linkiga aad copy gareynaysaa waxa tagaysaa marka tool waxa jira caadi oo lagu soo degi karo oo YouTube video downloader baa qoraysaa Google gareynaysaa kanoo kale aad save from net kaasaan aad loo isticmaalaa kaasaad waxa ku copy gareynaysaa marka linkigaagii baa halkan dhigaysaa kadib download baa oranaysaa muuqaalkii marka si toos ah kugu soo degaya marka kugu soo dego si toos ah hadana kanaalkaaga u soo okay ama waxa sameyn kartaa in
haddaa rabtid aadan Englishka waxa aadan doonayn Soomaali caadi ah marka ku qori kadhaa muuqaalo way jiraan Soomaali oo waxay helaysaa noocaan Creative Commons markaan ku qoro hadda bana Soomaali eragaasana taagska isticmaalaa noo soo qoranaya marka muuqaalo marka waxa sameynaysaa marka filterka tagaysaa sidoo kale Creative Commons ka taabanaysa kadib muuqaaladana ku soo baxaya gaar ku soo saaraya marka dib u soo gelin ka kulligood ka doontid marka waa iska hubinaysaa inta soo gelin kanoo kala hadda waan ku dhufanayaa markaan ku dhufto waa ina description okay meesha u dambaysa markaan tagnay marka oo description-ka halkaan license meesha ku qoran tahay Creative Commons baa u qoran dib baa loo isticmaali karaa muuqaalka marka intaas iska hubinaysaa waa wax fudud weey bilinaysa marka waa habka ugu fudud oo ugu leeysan weey oo loo sameyn karo in mataqaana muuqaal adoon waxba haysan oo muuqaalna aan duubin in YouTube ka soo gelisid haddana aan lagu qabsan oo copyright aan lahayn hababka kale oo ka si dambe muuqaalada dambe ka soo sameyn doona ayaa kasi professionalsan haddana laftirkooda ma adka marka si aad noola sii socotid muuqaaladan oo kale channelka lagu soo biir subscribe na saaro notification na furo si aad mataqaana muuqaalada dambe ula socotid waa mahadsantiin